بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير شفري ميكس توديدا كشكتنا أديات بنيسنا ولكن على شام الرواديو مغال عصب أديات بدو ما صدت وشد فيديو هذا تاي ولا لا لشوك بالك بولان كجماعة علينا تاتي ولا لا بصبنا جرك سبسكرايب سر أديات بدو ما صداي وما تصوني ميكس توديدا كشكتنا نير إشينيا كل يكونيما أن أمد سومالية ما أنتم حكادي دونا تي أمد سومالية واتن ويوالتي إن أول بوالك كينيا أن كبر سومالية وبلادنا يكويسين ويبدي دبعته كفرين taasaan eegi doonaa insha allah biidmillahi kariim bal markaa waxaan idhahdaba garan weyne ilaahay baa yaab keenay umuurahan iyo waxaan socdana ilaahay noo siqrey bal waxaan eegi doonaa urarta waxaan eegi doonaa iyada oon dhegeysan doonaa marxaladaheyga deetana inaguna waxaan ku dari doonaa wixii aragtidana insha allah iyo bal waxaan dardaaran siinano hablaha soomaaliyeed iyo kuwan guunka ah ee hablaha ka furtay shaqada insha allah waa ka xumayni ma jookar aad iyo aad baan ugu xumay waxa ku dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamaya dhamaantiin ummadda Soomaaliyeed horta ma rabin inaan social media waxaan hablaha qoysiinaysan u galay maxaa aan u dhintay subhanallah YouTube-kayga markastana waxaa idinku soo gudbin jiray barnaamijyo aad u farxad badan oo aad markastaba ku raaxaysataan laakiin daruufta waxay ugu kaliftay maanta inaan social media-hayga soo fariisto anigoo marxaladan ku sugan habeenkii xalay ahaa ciil aan la seexan waayey ba maanta aniga subaxa saaka aroornimada ah oo xilligaas eerligaas waxa isoo fariisiyey social media aroornimadaas waxa isoo fariisiyey wax yar ma aha ma fiicno Soomaaliya in la isku xadgudbo ma fiicno qofka bini aadanka in la xiniyo taabo wallahi waxna wax la daawan karo ma horta aniga wacal maahi dhulkana kama dhalan Soomaali Maxamed oo 22 milyan horta anuu ka dhashay number 1 number 2 haday habar noqotay oo marba dhinac la isku faquuqay oo aniga daahir calasow dhilla sharmutaho filmaanta saksiga samayso uu iigu sheegaya qabiilka aan ka dhashay aniga macsi dusha uu iiga saaraya mayhid ma jookar subhanallah ilaahay kaama dhigo xiniyo rageed baan barta aan fadhiyo ku fadhiyaano laakiin ma ka daa qabiilkaaduna walaashay anoo gabar Soomaaliyeed oo 22 milyan ka soo jeeda baan haddana waxaan ka soo jeedaa 18 milyan oo ka mid ah 22 milyan laandheera banaan degay 18 milyan dadka Soomaali Maxamed uu quwada badan geesinimo haday noqoto waxay dhal aniga darbi daaro naagtanada daarooda 9 bilood aniga soo qaaday oo adduunka i keento igu soo dartay rag aniga ka dhashayna rag la xiniyo taabta ma aha dad druucda loo siibana ma aha holanna waa ku nool yihiin yurubna waa joogaan saaka waxa halka aniga isoo fariisiyay daahir calasow intuu in adeerkay sidii la oga u galay sharmaake cabdi naasir bartu asaga ku gowracay oo waliba intuu soo fariistay yiri waliba diyaan ka dhiibaya si bahdilaada subaxdii dambana aniga iyo eedaday isku barnugu gowracay taas in gabisaar laga xirto waan ka xumahay mar labaad inuu saako ula dhaqmo aad iyo aad baan uga xumahay la ogaada Nicimo Joker mac salaama la idho wax ka dhaxeeya mala subax saakay dibka igu dhacay aniga dhafoorkayga ka muuqata daahir dibku geystay hablihii boqolka geelay dhigi way hablahan laga ooysinaya social media san loogu galaya ragga noo dhaxeeyana aniga waa la yaqaanaa ragga aniga aan ka dhashay uu igu xiniyo taabanay daahir uu igu raadsanayo oo aanan waxba ka hadlayn oo gurigayga aniga fadhiyo uu ileeyahay filmaanta joogta uu ileeyahay fiidiyooga waa kan wahaya subhanallah hablaha Soomaaliyeed waxa lagu sheego ma oyni ma joogtay nagu isnoolashii naga daa ilaahba idinku dhaashay ilaahi idin abuura idinku dhaashay hartinimo ma ku baxsan waay hadda rag aniga aan ku baxsan waay kabla laxnimo ma ku baxsan waay ilaahba idinku
ahay Soomaali baa kugu filan walaal cidna ku jirin maanta ka hor qabiil ah idinla soo hor fadhiisan intaasoo dhan haddaan ku baxsan waaye xataa midabkayga madowma ku baxsan waaye waayo aniga daahir calasow waxaana ahayn iyo ceebaan lahayn anoo salaad subax tukada haddaa ugu soo fadhiista daahir calasow ceebaana lahayn inuu dusha aniga iga saaro oo milyanka iyo 22 milyan isku dirka iyo isku dhiigga ay nortooda ceebaan lahayn every day oo dusha iga saaro maya walaashay ma geedid waxaasi hablaha Soomaaliyeedna waxaas dhan ma gayaan reaction ma ka dhiibayo videogan waa ka xumaay ma aha waxaan reaction ka bixinayo waa wax run ah waa wax aniga xiniya taabanaya waa wax aniga isoo gaaray waa wax aan ka gumoobayo ama aan gumka noqonayo maanta ama aniga maanta meel layga saarayo oo xal layga qaadayo ninka aniga intuu i qowracay qabriga i geeyey daraadna intuu in adeerkay dhibaatadii loogaa ku sameeyey ku baadilaya social media dhahay video raali gelina sootu oo Soomaali oo dhan ay ku fiirsato daarood Ismaaciil oo dhan ku fiirsaday maantana aniga hortiina Ilaah baa idinku dhaarshay ma intaa gabisaaraha iyo dharka tuuranayna sugaysaan Ilaah idinku dhaarshay maya walaal anagu tuuranin aad iyo anigu xumaa يا حسبي الله قبل حشونيا marka Soomaali maxameday shalay wuxuu dilay oo uu qalbiyan iyo mentally iyo emotionally u baabiyay waxay ahayd sharmaake maanta wuxuu caynaa waa aniga Franco marka berrima waxaa sugaysaan rago intuu guryihiina idinku imaanaya sugaysaan daahir calasow marka إله بانكو دارتي ميشان أما إنان كو قمو بسوشيال يا سمي وحن مداري على سبا سمي ولا شيء ترى مقعيقا إيا نولاشي دا آنكا ترترو إنتان نولاحي إيا مانتا إن أنيقا مبا هايستا قر وما هايستا أنيقا داهر على السوق رقا دارود إسماعيل السوشيال ميديا هكوجرو أما بنانكا هجوغاني نين كستو أو دارود إسماعيل وحينيا كلا لادان أو لبالوغودو كو سعودالي أن والله أو بالله أو تالله قرطان وديبانيا إله بقى إذن كل شيء هذا إيجا قبضنا وكاسا أو أنيجا لا شيء دارون إسمانا وديبنين لكن صومالي وديبو صومالي بكو فلان إنك داف قبيل ولا شيء وندريم يا دباتة كويسة قبيل كنك داف إله بقى إذن كل شيء صومالي محمد اللبي 20 مليون كيننا مرقاتان إذن قشتي 6 مليون أنو كأشين أو دارو دويناهنا وأقر اقتعاو إله بقى إذن كل شيء إنه يجمع سوتشي ده وصبح نمو والله وبالله هبينمي ولا يتهواي مصيحا مهرسن منوهين واي نتكاني يتوي صفريستي يفلقادي شلن من هذا كيسيد لوغا وكلمات راني يسوع عاي محاسو جيسان مركب بالرياضي كينو يدي ماذا ميا سوغيسان إلا يدي كنار شي محاسو جيسان يشيغا محاسو جيسان أنا قماتيتو أنا قدن رقيتو يا صفريستي أنا يبهدل يا عاي إلهي دي كنا شيء رجو Somali meesha joogtaanba Ilaahay idin ku dhashay ninka aniga isoo afligaatay intuu ina adeerkay daraadcay hadana aniga maanta isoo caay Ilaahay idin ku dhashay oo waliba yiri adeerkaaga diiga dhiibaya aniga naasiga miyay meherin Ilaahay idin ku dhashay maasiga iskala bixinteeda madiyadaydu leeyahay ma qabrigu idhigaya rag dad igu sokeeya la hadlaya daahir calasow miya aniga meherinay oo qabri idhigaya oo gabaadkayga iskale oo diyadayda iskale aniga waay السلام عليكم نبضك وحلا واحد تراجر الميزد habeenii maalin waxay keenayaan qofkii bulshadaas lahayd magac bay ku leedahay habeenii maalin waxay keenayaan gabadh Soomaaliyeed oo gowracayaan habeenii maalin waxay ka hooyisiinayaan hooyo Soomaaliyeed ama hablii Soomaaliyeed ee boqolka geela laga bixin jiray hablaha Soomaaliyeed maxay ula dhasheen wiilal Soomaaliyeed ay walaalo noqdeen marka qaarkeed taas ku qabanaysa
gabadha sawti la sharfi jiray ay sharaf iyo karaamo lahayd sawti la ilaalin jiray samcadeeda iyo wanaageega aaway muxuu ahaa dadkani waxaan soo kordhay waa maxay annaga ayaa aragnay xaqiiqatan waxaan aaminsanahay qofka gabadh Soomaaliyeed ka oohisiinaya ee dhibaato noocan oo kale ama ceebaheega baarbaaraya isagaan isirahayn isagaan isir ku abtirsan ama dadnimo diin iyo dhaqan mid toonaan lahayn gabadhani waa gabadhii laga bixin jiray boqolka geela waa maantana maxay u qoodeen inay ceebteeda suuqa wadaan ay ku oohisiiyaan horta ma ogin waxyaabo fara badan oo inaga qarsoon oo Rabbi uu og yahay baa jira anu ogeyn oo ilaahuna og yahay laakiin si kastaba ha u dhacdo gabadh Soomaaliyeed uma qalanto in suuqa la keeno iyadoo ooyeysa adduunyada intaa ku nool gaal iyo islaam bale madow iyo cadaan bale gabadh Soomaaliyeed unbaa dabeeda la hadalaya social media ku jirta sabab gabadha Soomaaliyeed mayna lahayn dad miyayna la dhalin isir iyo karaamiyo sharaf miyayna lahayn maxay ahaan dadka noocan inaga soo dhex baxay ee hilibkii hablooga cunaya hilibkii hooyadood cunaya ceebtii hooyadood soo qawaraya war waxni maxay ahaayeen ummadda Soomaaliyeed qabiil baa naafeeyay oo cirbaha u saaray maalinba meel baa laga ooyayaa waxa la leeyahay tani waa maxay waa ree hebel bes mid kala loogu argudayaa banaanka la soo dhigayaa goortana laga goynayaa xilibay noqdeen habluhu xilibay noqdeen target la ilaashado oo wixii la dooro lagu sameeyo sawkii hablaha iyo caruurta dumarkii haweenka suti xagga daba la marsan jiray sawkii raggu ka xigi jireen inay xinjirtooda la daadiyo marka gabadh Soomaaliyeed lagu xadgudbo muxuu ducufkan iyo doofaarkan hilibkii hablaha Soomaaliyeed cunaya ee Soomaalina daawanayso ay goobjoogna ka tahay 24 saacadood indhooga ay ku fiirsanayaan cid wax ka qabanaysan u jirin maragay ka xiniyadihiin maxaa dhacay aaway dadkii Soomaaliyeed ee dhiig iyo dhicaanka ku jiray ee hablahooga sharfi jiray u kici jiray u noola aaway war maanta haddii gabadh Soomaaliyeed la keeno oo afka ka xirato daawato tiraatan isku qabiil ma yihiin Britola walaasha la keeni doona adiguna ogow kan maanta gabadhan maanta ku gafayow Britola walaasha seed oo dhan doonta marka iyada la keeno waa loo saacabato doona Soomaa ila wax kale ma jiray hablii Soomaaliyeed waxay noqdeen wax laga argoosto oo lagu shaqo tago oo laga ganacsado oo wixii la doono loo sameeyo waa dulnicimiyo doofaarnimo ku soo korodhay ragga Soomaaliyeed ee maryaha xidhan qaar fara badan oo waxa jirta maryaha xidhan ragga laakiin aan rag ahayn dumar أنا وحنا مسناي نك قبر Soomaaliyeed xitaa haduu ceebteeda la kulmo waa inuu asturo shib waxana misanaay gabadha Soomaaliyeed inay tahay walaashayo kale taad la joogto ta ku dhashay iyo taadu aad dhashay gabar kasto Soomaaliyeed oo yeesana waa inay naftaada dhibto ama aad ka damqato marka damiir la waayashan hablaha sinu galaya xaqiiqatan waxa fududeynaya san u horkacaya wada ragga kale ee Soomaaliyeed hadii dadkan la iska qabto oon loo eegin kani waa qof kani waa cid kani waa ree hebel oo waajibkiisa la mariyo waxana meesoo noqdeen mid kalena waa leh dumarka Soomaaliyeedna wax isku noqdeen isku cadow imigu waxa arkaysaa gabar Soomaaliyeed baa dhibaataysan mid qoslaysa soo fadhiisanaysa bayleedahay wallahi billahi tula ada bari lagu keenay maanta qoslaysaa hadaad maanta qosasho adiga bari lagu keenaya waxay noqdeen dumarkii Soomaaliyeed in laga ganacsaday noqdeen wallahi inana beenini sheegin waxaan wuxuu marayaa meeshii ugu khatarta badnaa u maraya hiblaayi keen baa la maraya hiblaayi keeniyo dumarkeena waa masaakiin waxba adduunka kama oga meel kasta iska galayaan si kasta u soconayaan wixii la doonaa laga sameysanayaa berita ka maalina jeebkeyga lagu xisaabtamaya ummada Soomaaliyeed hadana dulmigeynu diidin dulmi baan ku noolaan doonaa layna marki doono haddaad adigu maanta fayoodahay ducdaadu ay fayoodahay Britola la keeni doonaa ama inantaada ama walaasha ama ehelkaaga haddayna dulmigeynu diidina adduunyada waan ka dabar go'aynaa balimiga social media u fiirso gabar Soomaaliyeed ba ooyeysa yaxle
maxaa ka oysiinaya waa walaalkeed way wax ku oysiinaya aad iyo aad baan uga xumahay walaashay Nimco Joker waxa ku dhacay laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay warniyo hablahan Soomaaliyeed inay cid yeeshaan baa loo baahan yahay hablaha kale dumarkana mid baan leeyahay war dumaro idinka isku noole idinkiiba isku cadawhe war waa inaad ogaatiin meesha wax idinka imanayaan gabadh kasta waa inay dhexda xidhataa gabadha Soomaaliyeed walaal male inaadeer male ehel male Soomaalnimo male cid ay leedahay ma jirto taas wax loo qabto day leedahay hadday wax cid leedahay u taas loo qabto gabadh kastayba waa inaad adigu cid isku noqotaa waa inaad ogaataa meesha joogto iyo xaaladaad ku sugan tahay waa inaad ka war haysaa nolosha aad ku dhex jirto haddaad adigu is ilaalin weydo cid kale ku ilaalinaysa ma jirto gabadha Soomaaliyeedna haddii maanta gabadha wax loo qaban waayo tu kalena wax loo qaban maayo haddii gabadhaas maanta ooyinta ku ilmayso Britol mid kala ilmeyn doonta qaar damiirku ka dhintay dulinimadu ku badan taho malaha laga soo tuuraan sidin meel laga soo habaaray ma garanay ayaa social media waxa la soo fadhiyaan hadii hiblay kala keenina Britol ogow in Britol wala shal keenin doona adigana nin walaalkii loo xirow adiguna soo qoysaa leeyahay war Soomaaliya sana isku dhaano hablaha dhibaatadan ka deeno war gabar Soomaalidu oo yeesa waa walaashayo kale war waata guriga aad la joogto oo kale waa hooyadii ku dhashay oo kale oo inta gabadha laga daayo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada fiidiyogan walaalkan Cali Jaamac salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh